أول قوي والذي أروس كابرت على بتاريخ سنوات أول كذا عنا يو أنتان هل كان كتجنا يقول أي من هورش على هم نجا قاعدين آذن مدوبة يعني وحنا تجنا بالله ده ماشي اللي يراهدو بالله ده مركان تجني مشرتين أولادي مركز كما يشرين لكن سدول بهانته إيو قاعدين بعلب الله هاي sidaas markay dhacday nimanka nagaan reer bicdiyahan habaryoonis baa waxay noo tirsanaysay nin baqdin baa nagu jidhay oo habaryoonis oo isku dhex jiraan yaanu ka cabsanayn markaasaa nin baa soo galay caruuskii waa quraan iyo la akhriyey ninkii soo galay nin habar jeclaah oo reer yuusufa iyuu ahaa wuxuu ammaanay reer yuusuf yuu ammaanay markuu ammaanay habar jecladii kale waa uu ka reebay ammaantii wuxuuna yidhi oo hadalkiisii ku soo gunaanaday ilaahay mooyaane wax aadanaaho idin gaara adinka reer yuusuf ma jiraan wiilka iyo gabadha isguursadeena waxay ahaayeen reer yuusuf markaasaan hadalkii waxaan idhi nimankii waan idin laynhayaaye isjira ha argagixina gabay baan idinku laynhayaa markaasaan waxaan idhi in dhaweyd orkayn gabay ka tegey aayad iyo jiibe anigaan aqoon waayin yaan xiray afkaygii aan iraahdo waataan wax badan aamusnaan jire in haddii abwaan uus yahay oo eebba wax u dhiiba ama aayadiin iyo qur'aan uurka laga buuxsho aslan wuxuu yaqaanaba rag waa laga afqaadaayo kolla uruga wow halis ninaan ehelkii kaabayna waa nin hadda baala dhayo joogo aan tol haysan inkaan ka gaabsaday waraan la istixyeynayno hadda waxaan ammaanta u hayaa waa aroosyada baan awalahase islaam baanahay iyo uunkii nebigii iyo ummaddii carbeed baanahay iyo ehel qureeshyada ilmihiisa daaroodnina iyo awliyaan ahayo kabla laxa arlada buuxiyey iyo ood saraan ahayo harti la istixiyeeyo oo nafluhu aamusaan ahayo majeerteen asaas dowladle iyo aamin baan ahayo ibraahim jibraa'iilnina iyo aar ciyaan ahayo bicdyahan addoonsiga nacay iyo aabi baan ahayo abtirsiinyo reer gaale eri yaan oday ku raacaayo afaqoonti reer samatar yaan u irkanayaayo asaliga nin liibaana iyo aararkaan ahayo il adaygi reer dhalac ayay igu ishaareen awoweyna waa maxamed iyo ehelu khayrkiiyo aabbahay siciid weeye iyo ubaxlamoodkiiyo ambasihii calaanahay haddaan la i aqoonayn afartaa olkeeyeye waxaan ku akidow raacsha argagaaxa goortaan dhigaan uurka ka hinraago kol haddaan iftiiniya hamayn erega sheegaayo isulooye ruuxii isyiri eego oo noqo sida aan alkaaf iyo ikhra iyo dhigan idaajaada ama aan axkaan adag bartiyo aayaddiiyo diinka akhrigiisa iyo luuqadda aanan ilaa weyne isagoo asaaboon markaan edeg u sheegaayo afka eebbahay kaa jarbay inuu tiraahdaaye ilna waan ka biqin inaan ilaah oofid ma aqaane allahayow asmada ha u aqbalin yayna aynabine ama kaage goortaan fahmada oodan soo furaye indhan way ka sheekayn haddaan eegays laysrugina is ammaani mahayee waxaan ogahay weeyaanoo goortaan akhlaaqdayda galaa la arki doonaaba afartaa olkeeye waxaan ku akidoo raacshi hadda waxaan ammaanta u hayaa waa aroosyada inantaan ka sheekayn hayaa eeggasay tahaye adinkaad abeer geele iyo aaran koray moodo oo faha sareetiya dhexdaad aar ku gudanaysid luquntiyo gacmaha aan arkoo la ashqaraarayo afkoo qalin la moodiyo ishaan olol ku saaweeyey oogada nadiif iyo dharkoo ubax la moodayo armadiyo asoostay haween unuga dheeraatay acmaashaan u eegaba yartaan wada ebyoonaatay arrinkayga taasaan rabaa inaan ammaanaayo allahayow adduunyada u daa ubadna loo yeelaba afartaa olkeeye waxaan ku akidoo raash inkastoo uluuf ani la ii dhiibo ka arrima adduunyada haddii laygu oranayo inta inama joogtiyo markaan uumiyihii baaray axad keliya lama dhaafiyeen ooga dahableeye inankan ayaan la heliyo wiil adduun huraye alla baraa ku waajibay ninkanay aqalki joogtaaye allahayow adduunyada u daa ubadna loo yeelo afartaa olkeye waxaan ku akidoo raash axmed iyo ugaas iyo cabdi iyo aadan iyo faarax aamine sucaad inay dhalaan oo bahaybsadaye aamiinka ii dhaha ducaan u akhriyaynaaba
assalaamu calaykum waraxmatullah.